wafdigu hogaaminaya madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo socdaalkooda sii wata ayaa gaadhay tuulada ceel baxay waxayna halkaasi madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo odayaasha tuuladaasi ay ku qaateen kulan ay kaga wada hadlayeen xaaladda abaaraha iyo gurmadka ay ka geysanayaan dawladda federaalka iyo tan deegaanka oo iskaashanaya madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo la hadlayay odayaasha ceel baxay ayaa sheegay in xukuumaddu ay ku mashquulsan tahay sidii shakhsi walba oo ku nool aagan uu u heli lahaa biyo ku filan iyadoo masaafada la qodayo biyaha ee dhulkan ciidda ah ay aad u dheer tahay balse ay xukuumaddu ku dadaalayso biyo u helidda bulshada xalay waxa weeyaan halka sababta soo saxna waxay ahayd aan dhibkeeda la qaybsano haddana waxaan raadinaynaa meel kasta oo biyo laga helayo aan raadino welibana hadda wixii ka dambeeya xoogga waxaan saaraynaa xagga biyaha dhankan bariga insha Allah oo sanadka hadda noo bilaabmaya qorshihiisa iyo miisaanadiisa barjanaha gaashaama laga soo jiidi karaa waa qolol weeyaan marka biyaha ayna raadinay wax biyeeya arkaleeyda taa ma taqaanaa hadii leedo waxooga saarayna alba hadalka ma taqaanaa ku haysta biyo meel oo dhaqaaq mayso calafna aday ku haysto meel oo dhaqaaq alba ceelkiisa waxa uu taqaan 550 ma qodayna ama marsi baa laga qoday 600 rizaru uu yaabay shidaalka inta la qodaa waxaana ku saray sawrin satellite la saaro la sawro ba taqaama lagu yeelay inta waxa uu raadinayna waa halka shacabka ayaa miisaaniyada inta la eegta lagu qoday ma ta lagu raadin ba ka badan taas weeyaan maanta waxaan ku faraxsanahay halkan inuu ma taqaanaa aan ku hubno biyo إلهنا وحفظ عثنا إنه نادب يليه يعني عال بحيلا ده وحويان الله بركة يو يدنا محاك رأي راب خير قبر الله نسينا نبت جديد إلهي نسينا حنوسي تاميله طب كان شارك دان كست شارك كان إلهي بجود برعايز كمريو إلهي بجود برعايز كمريو وحوي ولا الله إلهي كده إلهي واد كده تي يدنا نوسي عتك وحوي وناجي إلهي بتقنا سيلا ونوسي زيادة odayaasha tuuladaasi ayaa ka marakacay gargaarka dhan kastaba leh ee loogaga gurmanayo dhibaatada abaarta ee la soo gaarsiinayo hore madaxweynaha iyo dawladda iyo waftiga sharafta leh ee isxilqaamay ee dadkoodii abaaraysnaa u yimi madax inta madaxweynahoodii iyo maamulkoodii iyo wasiiradoodii iyo kuwii degmada bartii waxa laga sheegayay aan seexano oo aan la noolaano oo waxay qabaan aragno horta waa tii koobaad arag iyo maqal baa horta aniga igu horeysay sidaa horta waa ku sii maadsantii maxaa yeelay madaxweynihii iyo wasiiradii iyo guddoomiyeyaashii baa ku bariyay habar waliba saaka wixii caafimaad dawladdu haysay iyo wixii ay dawo haysay lagu dhumayso waa ku maadsantii halkan madaxda fadhida waxqabadka dadka aragtidu ma wada gaadho laakiin waxa gaadha waxqabadka dayba dhowr goor ku celiyay madaxweynaha ma arag waxa si aragtiya marka waxqabadku soo gaadhay uu soo gaadho cid waliba aragta yar baad shakhsiyaal ku anuu in badan baan arkay waanu 3 goor ama 4 jeer madaxweynuhu tawaan ugu soo maray naga barbanaan iska joogo dhaam lahayn oo wadooyin cagaf lahayn oo riigag noo qotomin oo iskuul lahayn oo waxba lahayn oo waabaha dhex fadhida ayuuna soo maray bartaas isugu kaaya taagay halka imika qashinkiyo magaalada dhexdeeda ayuu nagu qaabila wixii uu naga ballan qaadayba waa noo fuli dhaamka ugu horeeyay sidaasigeeda nagama maqnayn 3 bilood waana soo maray markii uu soo maray wax qabad iyo heerka uu wax qabad ku joogay heerka noloshiisa waa la qabsay waliba ceel baxay ahaan had gaar baa isaga iyo madaxdiisa baa u rajaynaya wuxuu yiraahdaa odayaashii hore oo jiray waa maxay isugu keen dambeeyay hebelow labada hore isugu halkan madaxweynuhu nagu soo maray markii uu nagu soo maray abaartu waa soo kumbay safar banamaysaa ceelka biyeysnaa madaxweyne ballankii uu noo oofiyay sidii baa gustul fadhidaao dadkii dawaa ka gurmadka uu sameeyay halkii wixii kaga dhintay waa ka madaxweyne ku qaabilay calaamadiyay calaamadaadii aad maalintii calaamadisay midhaheedii dawaa taa ummaddu u ayday degmadii ka qayb qaadatay gobolkii ka qayb qaatay mas'uuliyiintii ka qayb qaatay ilaa ciidan hoggaanka wanaagsan hadduu wanaagsanaado ku yimaadana uu la wanaagsanaya waxa kaloo
naxariista dadka halkaa jooga ay u yimaadeen ee ay nidaamkooda iyo waxooda ay u qabteen sidaa laajigeed baa dadkii maamulada lagaga tegay iyo wixii uu u reeshay waxaa layidhi nin geeliisa la qaaday ayaan darano mooye orodarano lama yidhaaho dadka halkaa jooga annagu sidaa uu odaygu sii sheegay wax ciidanku sido iyo wax dawlad deegaanku sido iyo wax uu sido xukuumaddeena iyo dee maamulkeenu sida mooyaane dee mana arag wax cid kale sido haddii ay dhacdo noloshu inay taa ku xidhanta dee cidibo isuma timaadeen madaxweynaha haddaan dawladda ka hoosaysa aanay wanaagsaneen farquri fool ma dhaqdo waa la wanaagsan tahay waa la waxqabad waxay soomaalidu ku mahmaada ninkaa dheer wax lama tuso ninkaan aqoonna wax looma sheego waayo wixii aanu idinla dholhayn badda idinkaaba qabtay qabyo nagama aha markaa 100% annaga wixii la soo gaadhay ciidanka mas-uuliyiinta maamulada degmada madax xafiisyadiyada dad waagii beriyaba inta halkaa lagu keenay heegan u ah oo ka qaaday ee aan wejigiisu aan u iman waa u sawiran yihiin waxa mahadle ilaahay ina abuuray ee nafta iyo dhiigayna geliyay waxa kale oo mahadle dawladda xubnaheeda ilaa heer madaxweyne ilaa heer ra'iisul wasaare mid ciidan mid degmo mid heer gobol ilaa xubnaha dawladda heer qabalay ugu hooseeya mahad baanu naqaynaa si fiican baanu salaan sharaf u siinaynaa salaanta islaamka lagu salaamato ugu qiimo badan mahadnaq waxaanu leenahay dalka iyo dadkaba nabadgelya taala iyo nimco caafimaadkuuna daweeyay biyaha waana loo keenay baadka xoolaha waana loo keenay dawada waana loo keenay ilaa madaxweyne ilaa ciidan nala jooga ilaa gobol ilaa degmo oo mahadnaqayna marka hore marka labaad meel kaste waxa dii og oo anagu ka warramo dawladda dii og oo nooga warram baa anaga meel wad 4 goor uu fariistay madaxweyne waa koow kulli degmooyinkan waxa weeyaan waxaan anigu odhan lahaayeen ka hadli lahaa wax imika aanu ka cabanayno waxaasa naga dhiman daan ku cabanaynaa ma jirto waxa kale oo jirta halkan imika dee waxa yaala nation ballaaran ilaa 3,000 oo qoys baa yaala aad waatan dawladdu u qasho 80 neef 90 neef 70 ayaa loo qalaa ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillaah dawladdu waxay uga jawaabtay si aad iyo aad u qiimo badan dadka waxaa la siiyey raashin fara badan oo kala noocnooc ah bariis leh sonkor leh daqiiq leh boorash leh caana leh caws baa la siiyey xoolaha wixii ka sii noolaa ay dawladdu ugu deeqdo ay siisay waxaa kaloo la sameeyey 3 fays oo ilaa u dhiganta 3 bilood xoolaha dadka loo qalayay ari baa loo qalayay dadka ilaah baa mahad iska leh dadku baahidii ilaahay baa koobi kara baahida dadka lama koobi karo laakiin ilaah baa mahad iska leh dawladda aad iyo aad bay uga jawaabtay ilaah baa mahad iska leh maantana waxaa la siinayaa sonkor iyo bariis baa la siinayaa dadka
wafdiga ayaa inta uu ku guda jiray socdaalkan aan marnaba dhaafaynin shacabka ku nool goobaha miyiga ah ee abaartu ay saamaysay iyada oo la xog wareysanayay loona kuurgalayay xaaladooda waxaan u fadhiisanay madaxweynaha iyagii wacan ayaan isdhiidaacan caawiyo waxay disii halkaana waa gaari kari weyn halkaana waa garin yaro halkaana uma xayn yaro mana dhag fadhina adil wuxuu soo diray cidna midaan ku dhaafay culis wuxuu ka rogi karo si wax loogu cayntana dadku waxay cunaan iyo caws iyo biyaba keen casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi cidna midaan ku dhaafay culis wuxuu ka rogi karo si wax loogu cayntana dadku waxay cunaan iyo caws iyo biyaba keen intaa kadib waxa wafdigu gaadhay tuulada kaam cumar uu madaxweyne cabdi maxamuud cumar kula hadlay shacabka tuuladaasi waan salaamayaa dhammaantiin dumarkii iyo ragga waan salaamayaa iyo odayaasha waxa weeyaan socdaalkaan u soconaayo waa xaaladda ama xilligan waxaanu waad garanaysaan waa abaarta ilaa hadda welina haysa iyo inaan xaaladda maxaan ku rahay shacabka aan la qaybsano dhibaatada ay ku jiraan sabarkaa indhahanaga aan ku aragno intaas weeyaan intaan u socono ta kale waxa weeyaan abaartan dhibkeeda iyo hawsheeda waxaa lagaga bixi karaa oo keliya allabari iyo in ilaahay aan barino inuu ilaahay roobna siiyo marka ilaahay roob khayr qaba allah ina siiyo abaartan allah inaga jebiyo roob khayr qaba allah ina siiyo abaartan allah inaga jebiyo caafimaad khayr qabtana allah ina siiyo marka waxa weeyaan hadda waan soconaa gaashaan waan ku soconaa haddii ilaahay yidhaaho waxa weeyaan waxaan u soconaana qorshaha idima wareysanayno xaaladiina waan ognahay aad ku sugantiin wax war ah oo maxaan kuraa nooga dhiman ma jirto dawladda deegaanka iyo taa federaalka iyo unit hore iskugu tagto daruuriya ma bedeli karto marka waxa weeyaan allabari in la sameeyo dadku maxaan kuraa is saamaxo caloosha mataqaanaa la iska sii daayo oo waxa weeyaan maxaan ku rahay dhibaatada inta lagu sabro ilaahay la baryo keliya taa weeyaan wax kaloo qaadi karma roobkana ilaahay baa iska xukuma dawladda shaqo kuma le mana keeni karto unit walba hadday isku tagto maxaan ku rahay daruuriya ma samayn karayso marka waxa weeyaan taa waxay ku xidhan tahay adiga oo ilaahay toos u baryada cidnaa idiin dhexayn ayay maxaan ku raha ku xidhan tahay dawladda kuusoo mari maysa baryada ilaahay waxay cidna kaagagama xidhnaa marka inaad maxaan ku rahay aad waxa weeyaan taa aad idinku waxa intiina meesha joogto haddaad isjeclaataan intan halkan fadhida iyo halkan oo waxa weeyaan shaksiyaadka dhexdiina waxa ka dhexeeya aad isku samirtaan roob lama waayo intiina halkan fadhida intaan keliya ku xidhan marka taasaasaan leeyahay adil wuxuu soo diray cidna midaan ku dhaafay culis wuxuu ka rogi karo si wax loogu cayntana dadku waxay cunaan iyo caws iyo biyaba keen casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi
walahayo cirku wuxuu ku horaa dhulkuna uu cagaarkiyo caleemaha ku bixiya cilmigaaga weeye cusriga naga dulqaado cirkanoo irmaane amiin cirkanoo irmaane amiin cirkanoo irmaane waxaa xusid mudan in inta uu wafdigu ku jiray socdaalka uu aqal isu dultaagayay iyadoo la indhaindhaynayay xaaladda bulshada lana gaadhsiinayo raashin caws iyo biyaba cadil wuxuu u soo diray cidna midaan ku dhaafay culays wuxuu ka rogi karo si wax loogu cayntana dadku waxay cunaaniyo cawsiyo biyaba keen casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi cadil wuxuu u soo diray cidna midaan ku dhaafay culays wuxuu ka rogi karo si wax loogu cayntana dadku waxay cunaaniyo cawsiyo biyaba keen casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi carradiyo dhulkeenana abaar baa ku ciirto markii cad iyo caanaba laga waayay cuudkii carruurtiina uydeen hooyadiina ciilkiyo lacagtawday murugada marka geela muxuu yaa ka haysta geela uu ka lumay geel baadiya meeshaa tiina ciyaar طبعا kii kale kuwa kale waa maqmaqan ay ugu maqan magaalada qaar ku maqan haye waa maqmaqan hooyana hooy magaalada jirta ay nagu salax cadil wuxuu u soo diray cidna midaan ku dhaafay culays wuxuu ka rogi karo si wax loogu cayntana dadku waxay cunaaniyo cawsiyo biyaba keen casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi casiskana baryuu yidhi cadil wuxuu u soo diray cidna midaan ku dhaafay culays wuxuu ka rogi karo waxaa intaa kadib uu wafdigu gaadhay degmada gaashaamo iyadoo halkaasna ay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada gaashaamo ay kulan ballaaran ku qaateen iyadoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu ka hadlay saameynta ba'an ee abaarta iyadoo loo baahan yahay ayuu yidhi in laga fikro waxyaabihii mustaqbalka lagaga gaashaamo lahaa dhibaatooyinka noocan ah soo noqodkooda anagu toddobaadkaba waxaan ku jirnay socdaal indhaindhayna oo aan ugu hurgalayno abaarta iyo
dhibaatadeeda inaan shacabka la qaybsano qabalada iyo tuulooyinka yaan inta badan waqtiga siinaynay maadaama dhibaatada ugu weyn halka ay taalo abaartu waxa ay saameysay horta waa dadka iyo dunyada iyo deegaanka saddexdaa way saameynaysaa dadka cuntada iyo biyaha iyo daawada iyo isku socodka iyo isgaarsiinta intaba way ka saameyn xoolahana waxay ka saameyn cadkii caanihii iyo jiritaankooda way ka saameyn inuu xataa ilaa siilkoodu uu lumo ay ka saameynaysaa wala waayaba awaamirta dawladnimo hogaaminta loo igmaday waxaan ku ammaanayaa amaanada iyo xilkii iyaga loo dhiibay shalay sibayu madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga fikiro oo farsamadii lagaga bixi lahaa mustaqbalka dhibaatooyinka noocan ah haddii abaartu ay sidan ahaato maxaa la sameyn baa taalla in laga fikiray u baahanta hadduu roobku doo haddana maxaa la sameyn in laga fikiray u baahanta roobku hadduu doo haddana abaarti waxa weeyaan iyo rooblaanti berriina timaadaa suurtagal mar kasta markaa in laysoo noqoto maaha waa in waddo kale lagu fikiraa sidii loo noolaan lahaa shacabku u noolaan lahaa in waddo kale loo baahan yahay bay iska caddahay dee oon xoolaha un lagu noqonin yacni dad xoolaha ku nool keliyana la noqonin laakiin farsamo la keeno adduunka hadda wax xoola ku nool wuu yaryahay aada buu yaryahay wax xoolaha ku nool marka taas in laga fikiro xoolahana inay dhiman karaan abaarna iman karayso noloshiina loo baahan yahay dowladda maxaa la gudboon shacabka maxaa la gudboon taa in la isweydiiyo baahanta marka taa mustaqbalka dadku haddayna qaadan dowladdu waxba kama qaban karto hata xoolihii oo baaba-ay xoolihii oo dhintay xoolihii oo rafaadsan dadkiina ay la rafaadsan yihiin madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay in abaartani ay tahay tii ugu darayde ee muddo 50 sano ah soo marta deegaanka loona baahan yahay in loo guntado sidii looga bixi lahaa mustaqbalkana looga gaashaaman lahaa abaartana abaar lamid ah iyo intuu markay qiimeysay adduunku waxay yiraahdeen 45 sano 50 sano ka hor baa noocan oo kale la arkay waa iyo intuu markay ka hadlaysay marka waad garan karaysaa abaar waxa weeyaan iyo inta ku qiimeysay inagu inaan maxaan ku raadinay baa suurtagal ah waxa weeyaan sida ay u sheegeen waayo in kuwii hore xasuusano kuwii hore soo mari jirnay laakiin tan macal kuwii hore way ka adag tahay siyaabo fara badan bay maxaan ku raad adag kuwii hore marka laba arrimood baan u kala qaadaynaa hadda waqtigan jooga sidii looga bixi lahaa iyo waqtiga dambe ee soo socda sidii tan oo kale inaan u noqon lahayn dhibaatada waxba laga bartaa in dhibkana wax ka barano iyo loo baahan dadka wax bedela shacabka wax bedela dhulkana haysano kale dad badan oo haysaninba yaa nool oo iyaga adduunka caawiya marka taana in la fikiro waxa weeye qofku inuu rag baa maxaan ku raad diyaaradaha sameynaya rag baa waxa weeye dayax qabeedka tagay waa 9 bilood uu ku dhashay waxa weeyaan fikir mu keeno marka maskaxdana in laga fikiro oo waxa weeyaan la toojiyo oo laga fikiro baantahay oo dadna lagu dhaqaaqay baanta cid uu ilaahay ku soo dhaliyay inuu waxa weeyaan diyaarad kiciyo ma jirto nin kasta uu ku fikiro uu isku dayo reer isku dayo baantahay oo waxa